السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال halkani waa walwal oo wadaala bakala socotaan wararka iyo warbixinada caalamka. Warka waxaad la socodsiinaya aniga Maxamed Aadan Cabdalla. Qodobada aan warkeena ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah kumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa shaqo joojin sameeyay Arbacadii kadib markii qof mudaharaadayay uu u dhintay sunta dadka ka ilmeysiisa. dalka Benin ayaa dib loo soo wareegay hanti farshaxan oo uu Faransiisku hore uga dhacay. Dowladda Israa'iil waxa ay sheegtay inay weerar ku qaadayso goobaha lagu sameeyo nukliyeerka ee Iiraan. kumanaan kun oo reer Tunisia ayaa shaqo joojin sameeyay Arbacadii kadib markii qof mudaharaadayay uu u dhintay sunta dadka ka ilmeysisay intii lagu guda jiray mudaharaadyo lagaga cabanayay dib u furista goob qashin qub ah iyadoo dhibaatooyinka deegaanka ay ku soo badanayaan dalalka ku yaal waqooyiga Afrika. Cabdirasaaq Lahjaneb oo 35 jir ah ayaa subaxnimadii hore ee Talaadadii ku dhintay Agreb oo ka tirsan gobolka Sfax ee xeebta dhexe kadib markii ciidamada ammaanku ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysisa si ay u kala eriyaan dibadbaxayaasha. mid ka mid ah dhakhaatiirta iyo xubin qoyska ka tirsan ayaa sheegay inuu u dhintay neefta oo ku dhigtay. xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay furtay baaritaan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in Lahjab uu u dhintay xaalad caafimaad oo horay u haysatay ee aanu u dhiman neef qabasho ka timid sunta dadka ka ilmeysisa. Arbacadii magaaladu waxay samaysay shaqo joojin guud. kumanaan qofna waxay socod ku mareen meel 6 kiiloomitir ama 4 mayl u jirta magaalada ilaa goobta qashin qubka taas oo u adeegta ku dhawaad 1 milyan oo qof ilaa laga xiray bishii Sebteembar cadaadis uga yimid dadka deegaanka. laakiin mas'uuliyiinta ayaa go'aansaday Isniintii inay dib u soo furaan goobta taas oo dhalisay mudaharaad degdeg ah. Arbacadii kumanaan qof ayaa magaalada dhex maray iyagoo ku dhawaaqaya waxaan xaq u leenahay nolol sharaf leh, waxaan xaq u leenahay inaan hawo nadiif ah helo. ciidamada ammaanka ayaa mar kale goobta la soo dhigay iyagoo fara badan waxaana ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysisa si aysan dadku u gaadhin goobta. mid ka mid ah mudaharadayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in booliisku ay xidheen magaalada 24 saacadood ee la soo dhaafay. waxaan aragnay ciidamada ammaanka oo ilaalinaya qashinka iyagoo burburinaya muwaadiniinta, burburinaya xuquuqda dadka deegaanka ee ah inay dadku helaan deegaan caafimaad qaba iyo nolol sharaf leh ayuu yiri. mid kale ayaa yiri meesha qashinka lagu shubo waanu tegaynaa, waa xidhaynaa, halka ayaan joogaynaa toddobaado, bilo iyo sanado si aan ugu dagaalano in meesha la xidho. waxa uu sheegay in qashinku magaalada ku hayay cudurro iyo urxun muddo 14 sano ah. labadubana waxay codsadeen inaan magacooda la sheegin. dadka deegaanka ayaa ka cawday inay buuxsantay iyo in sunta kiimikada lagu daadiyo xarunta loogu talagalay qashinka guriga caadiga ah. socodkii Arbacada ayaa yimid kadib markii ururka shaqaalaha ee UGTT ee awoodda badan uu ku baaqay shaqo joojin guud oo dadweynaha iyo waaxaha gaarka loo leeyahay taas oo ka dhalatay waxa ay ugu yeedheen faragelin bahalnimo ah oo ay sameeyeen ciidamada ammaanku fiidnimadii Isniintii la soo dhaafay. guud ahaan gobolka Sfax waxaa hareeyay mudaharaadyo toddobaadyo socday oo ka dhashay dhibaatada qashinka taasoo la arkayay qashin badan oo daadsan wadooyinka. tan iyo markii xarunta Agreb la xiray degmooyinku waxay diideen inay ururiyaan qashinka iyagoo ugu baaqay gobolka inuu helo xal waara. Tunisia ayaa in muddo la soo diristay dhibaatooyin la xiriira wax ka badan 2.5 milyan oo tan oo qashin ah oo la soo saaro sanad kasta taasoo badi lagu daadiyo meelaha qashinka lagu daadiyo iyadoon dibna loo warshadayn waxbana. waddanka ku yaal waqooyiga Afrika ee Benin ayaa Arbacadii shalay soo dhaweeyay ku dhawaad 30 hanti boqortooyo oo laga dhacay gobolka galbeedka Afrika intii uu socday gumaysigii Faransiisku in ka badan 130 sanadood ka hor. madaxweynaha Benin Patrick Talon iyo wasiirka dhaqanka ee dalkaas ayaa Salaasadii u safray magaalada Paris si ay u soo celiyaan 26 agab farshaxan
waana qayb ka mid ah dadaalada uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku doonayo in lagu soo celiyo dhaxalka Afrika. diyaaradda sidee hantida boqortooyada ayaa galabnimadii Arbacada ku degtay garoonka diyaaradaha ee Cotonou oo ah caasimadda dhaqaalaha ee Benin, halkaas oo boqolaal qof ay isugu soo baxeen si ay u maamuusaan iyagoo qoobka ciyaar iyo damaashaad ku soo dhaweeyay hantidooda hore looga dhacay. Ousmane Agbegmendin oo ku sugan wadada isku xidha garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada ayaa waxa uu yiri waxaan u imid inaan indhahayga ku arko in alaabtan ay runtii dalka dib ugu soo laabatay. ma arki doono walxaha, laakiin xaqiiqda ah inaan ogaano in carshigii awowayaasheen kabahoodii, hubkoodii iyo walxaha kale ay ku jiraan sanaaduuqda ay baabuurtani wado ayaa aniga saameyn aan la qiyaasi karin igu leh. wadada hareeraheeda qaar badan oo reer Benin ah oo intooda badan ku lebisan dharka hidaha iyo dhaqanka ayaa ku sugayay laamiga dacaladiisa dhawaaqa durbaanka iyo fanfaska ayaa la maqlayay. Martine Fignon Agoli Agbo oo degan waqooyiga Benin waxay la safartay labadeeda hablood in ka badan 500 kilomitir 310 mayl si ay u aragto waqtiga naadirka ah. waxaan joognay Cotonou 24 saacadood si aan u aragno imaatinka hantidan aad ayay u qiimo badan tahay ayay u sheegtay AFP. ma rabin in xilligan la iiga sheekeeyo, haddii caruurtayduna ay ila joogaan waa si ay maalin uun awoodaan inay caruurtooda u sheegaan. soo celinta agabkii laga soo qaaday qasriga Abomey oo ay ku jiraan 3 taalo oo tatmik ah ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Afrika ay ku soo badanayaan baaqyada ku aadan in dalalka reer galbeedka ay soo celiyaan boorigii gumaysigu dhacay. dalka Faransiiska badi waxaa haysta madaxafka Queen Parley kaas oo bilaabay dib u eegis lagu sameeyo ururintiisa si loo aqoonsado shaqooyinka qaar ay sheegeen in lagu helay rabshado ama si khasab ah. sharci dejiyaasha Faransiiska ayaa sanadkii hore meel mariyay sharci ogolaanaya in Paris ay dib ugu soo celiso alaabada Benin iyo Senegal oo kale oo ay hore u gumaysan jirtay. Tolan wuxuu sheegay inuu arkay xil wareejinta taalada inay tahay tilaabadii ugu horeysay ee lacag soo celin ballaaran. Benin waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhowr goobood oo ay ku jiraan qalcaddii hore ee Boortaqiiska Oweydo iyadoo la sugayo dhamaystirka madxafka Abomey. khubradu waxa ay qiyaaseen in 85% ilaa 90% agabka dhaqanka farshaxanka Afrika laga soo qaaday. qaarkood waxaa gacanta ku dhigay maamulayaal ciidamo ama dhaqaatiir gumaystayaal ah, waxayna u dhiibeen faracooda kuwaas oo iyaguna ugu deeqay madaxafyada Yurub iyo Mareykanka. laakiin kuwa kale waxay ahaayeen hadiyado la siiyay adoonsadayaashii ama waxaa helay urureeyayaalka fareedka Afrika bilowgii qarnigii 20aad ama se waxaa lagu daahfuray sadcaalo cilmi baadhiseed. guddi khubaro ah oo uu xilsaaray Macron ayaa tirisay ilaa 90,000 oo Afrikaan ah oo ka shaqeeya madaxafyada Faransiiska. 70,000 oo ka mid ah waxay ka shaqeeyaan Queen Parley oo kaliya. Britain, Belgium, Netherlands iyo Germany ayaa sidoo kale helay codsiyo uga yimid wadamada Afrika si ay u soo celiyaan hantidii ay qaateen. Nigeria waxay sheegtay bishii hore inay Jarmalka kula heshiisay soo celinta boqolaal waxa loogu yeero Benin Princes, tabeelooyin bir ah iyo sawirro laga soo qaatay qarnigii 16aad iyo qarnigii 18aad kuwaas oo laga xaday qasriyadii boqortooyooyinkii hore ee Benin. waa Nigeria dhulka loo yaqaan maanta. taliyaha ciidamada Israa'iil Aviv Kofafi ayaa guddiga xiriirka arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka u sheegay si looga baaqsado khatarta nukliyeerka ee suurtagalka ah ee Iiraan ka iman karta in ay ciidamadu sii kordhiyaan dadaalada ay ku qorsheynayaan weerarada xarumaha nukliyeerka ee Iiraan lagu qaadayo. wuxuu sheegay inay Israa'iil hadda isu diyaarinayso inay wajahdo Iiraan. wargeyska Times of Israel oo soo xiganaya taliyaha ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaandhigga ay ciidamada awood u siin doonto inay wajahaan hanjabaadaha kala duwan ee dhanka Iiraan ka imanaya. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in hadalka taliyaha uu ku soo beegmayo xilli la filayo in ciidamada cirka ee Israa'iil ay dib u bilaabaan tababarkii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen weerarka ay ku qaadayaan xarumaha nukliyeerka ee Iiraan.
taliyaha guud ee ciidamada Israel Afif Kofafi ayaa bishii Janaayo la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay sameeyaan qorshayaal suuro gelin kara weerarada lagu qaadayo xarumaha nukliyeerka ee Iiraan